casharada ka bartay markii ay qabteen ciyaal weerada. Number 1 haddii lagu qabto ha iswalwaalin isdhiib salaantana saar. qofka bani'aadamka si kasta oo amxaar cadow u yahay mar haddii aad isdhiibto oo taliya waa kuwa taa dhahid oo isqaboojinaa laakiin haddaad san ka taagtid aadna sanka lagaa jibinaa. Number 1 haddii 5 qof 6 qof ilaa iyo 10 qof ay ku qabtaan isku day hal qof inaad ka aqoonsatid 10kaas qof ay ku qabsatay maxaa yeelay haddii hal qof aad ka aqoonsato ama calaamad aad saarato ama si fiican indhaha kor iyo hoos aad u fiirisid waxaa fududaanaysa dhowti ninka markaa magaalada ku aragtid in aad kuwii kale habeenkii dhibaatada ku geystay in aad hesho. hal qof haddii la qabto iyaga oo dhan waa lasoo wada xareyn karaa taas fikir aan waayo. Number 2 haddii aad shaki ka qabto in jidka aad marayso ciyaal weere ay geli karto telefonka haddii ay lacag kugu jirto lacagtaada sii tuuro oo almost gurigaaga u sii tuuro wax lagaa qaaday ha ahaadan oo keliya telefonkaaga. sidoo kale haddii telefonka in laga qaato la isku dayo ha isku dhejin ee iska dhiib bataatanba buuq iyo qarrac ha gelin iska dhiib. habeen dhaweyd mootaa waday ana oo meel jabadgeelay dhahaan xaafaas ka dhex maraayo 6 saac bar habeenimo ay ahayd adiga magaalada buuqeeda iyo shiidkeeda ku wareersanaa kaliya isku buuqsanaa iska sheekeysay waa boojisnaa hal mar geesaha la iga soo wada baxay 7 qof 2 jidka isku aadiyeen 3 waxaa waa geesaha ay kala mareen anigaaga uu bari waxaan isriniya ku aan sugud waay waxba iswaalne isdaji laas dhiibay ilaahay amarkii marka hal qara oo soo gato mootada gadaasheeda ii saarnaa saana ii fiirfiiri halkii qara ay qaateen iska baxay dheheen oo taliya qaraas ka keen iska baxaada alxamdulillah qaraas wada ay qaateen saana ugu baaseen waa ma sintina laakiin saas ay tahay hal qof ka aqoonsaday oo kor iyo hoos u fiiri isla qofkii aan ka aqoonsaday maalinkii dambe waxaan ku arkay boostooyinka oo mootooyinka laga raro asoo waxaan kula dhuuqay oo meelaha wareega aan ku arkay waa qabtay oo xasuusta waraama ku xasuustano yaa tahay qara bis saana wada fadhana kullee waa ku aqoonsaday habeenkii saas ay qabataan mama xasan inuu ku jiro camal inkiraado iyo keen laakiin waa aqoonsaday anu mar hadii qara la iga qaatay dirbi kale aan liigeysan de waa ka dhacay igna iska qaraabtaan suuqeen iska galam dhimay ugu hayaanba. marka sidoo kale faa'iidooyinka ugu muhiimsan waxa waaye marka soo bixaysa hadii jidka aad ciyaal waraha ka cabsi qabtid hal kooxba qaraa iyo dhowr xabo moosa iyo waxyaabo liin iyo waxyaabo lagaaga mashquulo hore u soo qaada tusaale ahaan haddii aad wax soo qaadato wixii aad soo qaadato laga qaadana nafsadaada way ku badbaadaysaa oo iska baxaa lagu leeyahay minaha laakiin haddii aan waxba soo qaadan oo eber aad tahay bugta lagaa gelinaya indhaha lagaaga istaagaa. marka intaasaa ka bartay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ayaantan tiktok ka maqlaha bahalkaan naga geejiyaniyo waa ka yaabanay ayaantan falowda iyo laagta sheerta commentiga waa dhankeena guuleysta.